waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan salaamay dhammaan walaalaha ku xiran janalkayga barnaamijka haweenka jimcaha waxaa iigu ballansan bushra cadeey oo aad iyo aad u wada taqaaniin bushra xabiibti asalaamu calaykum horta kusoo dhawow janalkayga marka koowaad وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي أنا حبيب سادة aad iyo aad walaa waa fiicana anagana maasha allah waa ku mahadsantahay bushra inaa igala soo qayb gashid barnaamijka haweenka oo aad jaaniskaaga wax iga siisid horta see u aragtaa barnaamijkan maxaa isleed waa laga faa'iidi karaa هذا هدسنتها باي برنامج كاغا إيو حسومتي برنامج في أنا أسو فكرتي شعب إيدادك وحيال بدن إن لغا فائدة دونا أمالينا قف كست فكرة أيو كديبنا يا مركا صح waaye su-aashayda koowaad bushra aan ku weydiinaya horta waxay tahay haweenka iyo ragga soomaaliyeed keebu horta ku dhisan yahay qoyska والله هرتا هداده هبينك يرق سوماليات حكمنا ما شيء كري قف كاسو كتيرسين هاي لكن هدا هالله فمل أهان نين يناك أهان أنيقا ما دام نين سومالي مي قبل لكن هدا هالله جمع أهان نمن يناقو أو هالله فمل إن بيس فمل كوحو كتيرسين هاي لبدا قفو كتيرسين هاي inta badanna hooyooyinka ayuu ku dhisan yahay familiyaasha oo ragga dumarka ayaa dulqaad badan rag dulqaad badan way jiraan laakiin dumarka ayaa u badan dumarna way jiraan oo yacni waajibaadkii looga baahnaa aan kasoo bixin aad iyo aad marka haddaan kusoo laabto soomaalideena dhaqanka hadda ka dhex socdo dadka oo furitaanka iyo waxaas badanahayo waxaa u malaynaa dhibaato weyn inay dumarka tahay kaas inuu dumarka dhinacooda ka imaanayo aad iyo aada u mahadsan tahay bushra waxaad ii sheegtaa markii ay dhacdo inay qoys wada dhisan ay wada nool yihiin la rabo inay farxad ku noolaadaan farxadda gurigaas yaa ka dambeeya yaasa samayn karo ma labada qof ma qof keliya farxad gurigaas soo ku noqon kara guri faraxsan oo reerkaas cidda caruurta dadka isla nool faamilkaas isla nool ay ku noqdaan faamil faraxsan oo wada nool والله فرحة horta labada dhinac ka imaanay farxad hal dhinac ka imaanaysa ma jirto famil markii la yahay laba qof oo wada nool caruur hooyo aabo kulli farxadda waxay ka imaataa labada dhinac both side hal dhinac farxad kama imaato hal dhinac waxaa ka imaado dulqaad iyo samiraa ka imaado inta badan haddii labada qof ay isku faraxsan yihiin meeshaas waxaa kasoo baxaayo ilmo qurux badan oo dhisan maskaxdooda iyo dhinac walba iyo famil qurux badan oo ku dayasho mudan صح marka waxaa fiican labada qof inay wada tashanayaan ay waxooda is ogeysiinayaan oo isweydiinayaan maxaa la dhahaa soomaaliga yacni dad isku kalsoon ay yihiin kalsooni oo tala wadaag mar walba isla dashto haa kaasaa ka wada af soomaaligaas talada laisla wadaago oo wax laisla sheer gareeyo ani maanta saana damacsanahay walaalo see u aragtaa iyo heblaayo saana damacsanahay see u aragtaa iyo saan ma qurxana saana ila qurxan waxyaalo waxaa u mahadsan tahay walaashay bushro su-aasha kaloonka weydiinaya waxay tahay bushro waxaad ii sheegtaa maxaa sababa furiinka degdega ee qoysaska inta badan waxaa aragnaa qoysaska soomaaliyeed oo furiin ayagoo dadka aan wax badan wada noolaanin oo wax badan isbarnin degdeg laisku guursaday iyo degdeg laisku furaayo marka maxaa is leedahay waxa sabab u ah in la isfuro markiiba shukran xabiibti horta furniinka maxaa waaye wax kasta waxaa waaye calafka wuu dhamaadaa calafkana wuu imaadaa laakiin furniinkan oo expriceka oo degdeg imaanayo oo laba maalin bes intii la isbarto hore la iska aroosay hore la iska furaayo waxaan dhihi karaa waxaa keeno degdega keeno qofkii aada si fiican iskaga baranin oo aada meel saarin aada ogaanin dabeecadihiisa qofkii horay boobsiis hadhowna meeshii sheekadii boobsiis ayay ku dhammaane iyo kalsooni darana way keentaa sax yaa islaada marka kalsooni darada way ka imaadaa ama nimanka mase naagaha kalsooni darada maxaa horta keenay sideedaba wallaahi kalsooni darada horta ani ahaan waxa fiican qofka kalsooni daro markay ku jirto maxaa u malaynaa qofka naftiisa inuu ku kalsoonayn koos naftaada haddaad ku kalsoon tahay kalsooni daro ma kugu jirto waxaa fiican
qofkan haddaa meel isla meel dhigteen inaa isguursateen oo ilaahay calaf iskiin daray oo aada ku arkin qaladaad badan ama wax aada maanta dhihi karin waa uga tii karaa oo qofkan lagulama noolaan karo waxa fiican qofka inaad time siisid oo waqti siisid oo maxaa lahay u samirta hadday ilmo joogaanna waaba inaad u samirtid oo aragtid yani meel ilmo hooy la-aan ma joogi karaan aaba la-aana ma joogi karaan laakiin kalsooni darada waxaa u malayna qofka shaksiyan inay ka imaato oo qofkii asaga inuu is aaminsaneyn taas inay kalsooni dara taha u malayna sax waaye marka maxaa dhihi lahayd marka dadka oo noocaas oo kalsooni darada guryahooda ku burburiyo maxaa dhihi jira ayagoona wax wada tashi a ka gelinin marka horeetaba aan qofka aan kala tashanin waxaan way igu xun yihiin qaar waxaa jira dadka ayagoo dhihin niyo waxaan way igu xun yihiin iga dhaaf ama waa igu fiican yihiin iga dhaaf ayadoona dhihin deg isaga qaadanaya go-aan dadka noocaas ku dhaqma go-aanada noocaas deg a qaato maxaa dhihi lahayd horta ani waxaan dhihi lahaa hal mid aan dhihi lahaa gabdhaheena soomaalida ee u badan yihiin damost ay sameeyaan waxaana waaye heblaayo waxaa loo sameeyey ani liima sameyn heblaayo saana aheyd male iyo nimanka inay la xishmeynin oo nin maanta dhan kuusoo shaqaynayo oo shaqo ku maqnaa markuu soo gala inaad qaylo ka horgeysid ama inaad ka horgeysid gabasaar intaa qaadatid oo iska dhaqaaqdid oo ilmihii ah haddana ku dhigtid qof oo buuq iyo shaqo iyo stress ka soo baxay waxa fiican hooyo markaad tahay ama gabar la qabo markaad tahay ninkaaga inaad time siisid oo maxaa la dhahay ogaatid meeshuu ka baahan yahay oo adiga ah asaga priority-ga number 1 inaa asaga ka dhigtid inaad saaxiibtaa weynaysid ma-aan oo qadarisid inaa qof kale aa qadarisid ma ahan waalidka waa muhiim waalidka ma hadlaayo ani waalidka wax ka weyn ma lahan ninkaaga markuu imaado dhanka saaxiibtinimo iyo jiiraan iyo naag adi qof oo yacni beri haddii noloshaada ay xumaato waxba kuu taraynin inaadan reerkaaga u burburinin yacni qofkan ninkaaga waaye waa inaa full respect aa siisid intuu kaa mudan yahay intaa siisid waaye marka kole yani dad badan waa arkay waan soo arkay dad badan oo si xun ula dhaqmaayo nimankooda oo nimankiina niman fiican yihiin lama dhihi karo soomaali way xun yihiin soomaalida nimankooda aad iyo aad ay u fiican yihiin intaa kasoo arkay maxaa la dhahay oon la soo darsay waxaan arkay gabdho badan oo gabdhaheena ah oo aad u xun oo yacni meeshii looga baahnaa aan kasoo baxaynin xuquuqahoodii aan kasoo baxayn marka kole waxaa dhihi lahaa gabdhaha waxaa fiican markaa guursatid inaa guurkaaga ilaalisatid oo sharaf ku noolaatid ilmahaagana futurekooda aad ka fikirtid ninkaagana aa xishmad siisid ninkaaga haddaa xishmad siisid wax kale uu u baahan yahay male labada qof inay isxishmeeyaana fiican kadib jaceyl iyo wax kastoo iska imaanayaan aad iyo aad su-aashaan kale aan bushra ku weydiinaya waxay tahay maadaama aad igu soo dartay hadaayato ina adiga ku qabo nin ajanabi ah dad waxaa jira markay ay hadlayaan ama gabdhaha markay qaar hadda hadlay waxay kuleeyihiin fikradu waxay aaminsan yihiin nimanka soomaaliyeed waxaa ka fiican ay kuleeyihiin nimanka ajanabiga kuwana waxay kuleeyihiin nimanka ajanabiga waxaa ka fiican nimanka soomaaliyeed marka fikradda noocaasa maadaama adiga aad tahay qof soomaali ah nin ajanabi ana oo ku qabo oo labada dhaqanba aad taqaanid maxaa dhihi lahayd dadka noocaas dadka labadaas fikir ku kala fikirsan maxaa kula talin lahayd maxaas u sheegi lahayd wallaahi horta koo waxaa dhihi lahaa nin waa nin wuxuu raba ha ahaado nin maxaa waaye nin waaye meelo lagu kala fiican yahana way jirtaa meelo lagu kala xun yahana way jirtaa ma raba inaa kala qaado laakiin waxaa rabaa inaa dhaho qof kastay isku fahman waaye ma jiro nin oo perfect ah oo nin waa wada fiican yahay ninkan malaa'ig waaye la dhahay ma jirto nimanka bini-aadamka caddaan ha ahaado asian ha ahaado madow ha ahaado soomaali ha ahaado whatever wuxuu ahaado carab ha ahaado nin waa nin laakiin waxaa u malaynaa qof kasta dabeecaddu ilaahay u sameeyey inuu reerkiisa ku maamulo waa jiraan niman baariyaal oo dadkooda caawiyo anaga waxaa jira dhaqan aan leenahanay dhaqano wiilasheena lagu soo korinaa jiro dhaqano waxaa jira wiilasha ajnabiga lagu koriyey marka wiilasheena soomaalida sidii run ahaantii hadda way barteen ma yaqaanaan inay cunto oo naagtooda inay u kariyaan inay jiko ku galaan inay ku caawiyaan dad way sameeyo way jiraan laakiin anaga ma u lihin waxaas dhaqan maana u lahayn ceeba u tahay wiilkeena waryaa fadhiiso maxaa loogu diraya aal dhihi jira soomaa naagtaadioo joogto maxaa u istaagaysaa ma fiicna ninka waxaa fiican naagtiisa markay umul tahay inuu cuntada usoo kariyo
markay uur leedahay inuu usoo kariyo marmarka kale waxaa fiican inuu ka farxiyo oo surprise oo xaaskiisa ilaa wax kastay u tahay shaqo weyna u haysaa ilmay u dhalaysaa wax kastay u tahay lifekiisa dhan waaye waxaa fiican inuu ka farxiyo si kasta uga farxin karo dhinac kasta farxadda ma aan inaad lacag siisid dahab u gadid farxadda meel yaree ka imaataa bakeeri shaax coffee adoo u hagaajisid xaaskaaga intaasay ku farxaysaa wax yar adoo u qabatid ee ku farxaysaa adoo dhahday 2 hours naso seexo anaa ilmaha kaa celinaya ku fahmaysa marka waxaa dhihi lahaa wiilasheena soomaali maasha allah quruxda badan oo wanaagsan lama heli karo laakiin waxaa fiican dhanka inay u jajabnaadaan naagahooda gabdhaheenana waxaa dhihi lahaa ayagana gabdho aada u fiican waaye laakiin waxaa dhihi lahaa gabar kasta oo soomaali oo guri dhisato qabiilka rabta ha guursato ajnabi ha guursato soomaali maxaa fiican gurigeeda sabir iyo aqli iyo inay ku dhaqato maxaa la dhahaa wanaag iyo jaceyl iyo xishmad ay ku dhaqdo صح ما شاء الله marka intaasaa dhihi lahaa xabiibti maadaama aan nooga warantay hadda ee nolosha fiican iyo sida qoyska uu ku dhisnan karo marka adina waxaan kaa rabnaa marka inaad nooga sheekaysid xoogaa sida noloshaada iyo farxadaada iyo qoyskaada iyo xaajigaaga aa u wada shaqaysatiin oo reerkiina u wada maamulatiin si ay dad badan ay kaaga faa'iidaystaan mahadsanid xabiibti horta su-aal fiican ay weydiisay inkastoo ibsoo gaaday alxamdulilah horta noloshayda aada ugu faraxsanahay maasha allah nolosha waxa waye up and down waaye marba siya u socotaa laakiin haddaa kaaga warama aniga xaajigeyga yacni wax kasta waxaa ahayn dad oo isku kalsoon oo aan shakinin oo wax meel isla dhigo wax isla meel dhigo af soomaaliga saas maheno yacni isla gaaro go-aan wax isla go-aan qaato ها isla go-aan qaato waxaan jeclahay aan u sheego wuxuu jecel yahay ii sheego aan qof ma iska hor imaano yacni ma sameyno agi yacni dood badan mana dhex ooli jirin inta badan laakiin lifeka waxa waaye up and down waaye ma dhahay nin iyo naag oo perfect yaan ahnay laakiin maadaama aan nolosheena anaga aan isdooranay ahayd anagoo aada u yar the most waqtigeena habyaa ku qaadanay anagoo faraxsana isla qaadanay يعني وفرحسنا nolosheena ilmaheenan farxada ku korsanayna alxamdulilah marka ilmo qurux badan oo faraxsan aa helaysaa marka lifekaaga oo farxad aa ku dhisaysid maasha allah tabaaraka allah farxadda ma ahan inay mar kasta labada qof ay ka imaanayso marmar waxaa jirto hal qof ka imaanayso oo qofkii kalena uu arkaayo oo wixii la daboolayo qaladaadkiisi farxaddaas ay badanayso inkasta markaas oo ilmaha loo danaynayo marka sidaasee nolosha ay ku soconaysaa ee ku qurxanaanaya bushra walaashay qaali waa mahadsan tahay bushra walaashay qaali waxaad ii sheegtaa haa maya aad iyo aad af soomaaligaaga aad iyo aad u qurxan yahay maasha allah inii la is-aamino tii ani aan sameeyey oo success ani nolosheyda aan ku guuleeyey anigana gabdhaha walaalahayga aniga camal kula talin lahaa waxaa fiican inaad u samirtid noloshaada sidee kugu qabatabo maalin waa koraysaa maalin way hooseysaa waxaa kaloo fiican inaa ninkaaga aamintid oo ku kalsoonaatid oo too much shaki aada noqonin ilaa wax cad ma ahane wax lagu sheegan inaad raacin naag warkeeda inaa maqlin ani taasaa ugala talin lahaa waana wax ani aan arkay aan nolosheyda aan ku guulaystay oo aan ilmahayga alxamdulilah aan ku dhaqanayo iyo reerkayga marka always waxaa dhihi lahaa sabirka dhinaciisa haloo bato iyo aaminaada iyo wanaagga iyo jaceylkaba aad iyo aada umahadsan tahay jaceyl hala muujiyo maasha allah waa jaceyl hala siiyo nimankiina jaceyl hala tusaa jaceyl kaa guulaystaa leedahay soomaali jaceyl ma tusaan soomaalida waxay kule ma jecli ani ninka see cunug ku dhasha haddii jecleen ninka qofaan la jecleen maa la kaga dhalaadhe sax waaye maya marka qaybta jaceylka loo bato jaceyl ceeb ma ahan jaceylka waxaa waaye adduunka dhana ku dhisan maasha allah haddaa qofki xaqirtid ceeb waaye qofki sax waaye sanidaan lahaa marka jaceylka ha guulaysto marka abaay aada umahadsan tahay fartuun cali
saa iigu soo dhaweysay channelkaaga iyo waraysiga asxaabtaadan aad iyo aad ayaa u salaamayaa waa idin salaama asxaabey marka sidaas iyo khayr iyo caafimaada idinka tegaya caafimaada idin rajeynaya insha allah ilaahay waxaan socda ana mootiyo aamiin so bye bye abayo ay walaashay waa mahadsantahay aad iyo aad